aad baa u mahadsantihiin dhallinyarada salaan kadib waxaan aad iyo aad u mahadbaliyanayaa maanta ardayda sekandariya iskuulka ee Hargeysa oo dhammaantood ardaydii ka baratay dastuurka iyo shuruucda dalku ay soo gabagabeeyeen waxbarashadoodii oo aanu kala soo qayb galnay xafladda farxadda ah aad iyo aad baan u hambalyeynaa ardayda macallimiintii iskuuladooda waalidkood culimadii ka qayb qaadatay waayeelkii dhiriyey iyo siyaasiyiintii qaranka ee arrintaa ku taageeray aad iyo aad baan u mahadnaqayaa mahadnaqaa kadib dhammaanteen waxaynu u wada hambalyeynaa oo u ducaynaynaa dhallinyaradu inta badan fadhiga way ku daashaa odayaashuna ororodka iyo socodkay ku daalaan markaa noo dulqaata maanta dadka halkan fadhiya waayeel buu badan yahayoo fadhigaanu ku raajinaynaye in yar noo dulqaata saddex qodob baan ka hadlayaa qodob waa dhallinyarada maantaan hor joogo qodobna waa Somaliland muwaadiniinteeda iyo doorashada soo aynu ku dhex jirnaba midna waa caalamka waxa ka taagan mid walba in yaroo kooban baan ka odhanaya ta koowaad dhallinyarada maanta joogtaay anigu maanta idinka waan ka farxad badanahay maanta idinkoo wax bartay oo la hambaliyeynayo shahaado qaadanaya oo da'yar wiilaliya gabdhaba maanta anaa idinka farxad badan waayo waxaa ka socotaan maanta 37 iskuul oo dugsiga sare ah oo magaalada Hargeysa ah waa qodob anigu markaan intiinaa la ekayn Hargeysa secondary kamu dhisnay bal maleeyo magaalada Hargeysa oo aan secondary lahayn oo xaafadaha aad degantihiin aanu lahayn oo markaad ka baxday iskuulka dhexe ay kuugu dhoweyd inaad tagto sheekh iyo camuud weliba waa haddii tiro kooban kala badh ayaa baasgaraynayo tagi kara badanka kale camuud iyo sheekh way dhow yihiine qolada saddexaad ee nasiib u waaya labadaa waxay tegayaan xamar iskuulkii loola jiray iskuulkii ruushka baadir waxa ku xigay qolada ku xigta ninka labadaa nasiibku u seejiyaa wuxuu tegayay instituutka burco ka intaaba waayaana waxa uu tegi jiray iskuulka la odhan jiray taybinga CTC karaariyaasha ee magaalada Hargeysa iyo instituutka Hargeysa ku afraha ardaydeedii ka baxday oo labada iskuul ee imika la yiraahdo Axmed Guray iyo iskuulka biyo dhacay iyo Chris School saddex iskuul baa Hargeysa lahayd ardaydii ka soo baxday iyo kuwii waqooyi gobolada oo dhan ka soo baxay oo aan 300 ba gaarayn kaba yaraa 300 waxa loo waayay secondary qaada iyo meel ay tagaan markii loo qaybiyay camuud sheekh CTC labada farsamo iyo balaadir ku tagay waxa loo waayay kala bar kamida si meel la geeyo marka waxaan ku faraxsanahay inaad 37 iskuul Hargeysa ka taawdeen oo aad nabadgelyo caawa gurihiina idinkoo secondary oo da'yar waliba wada dheeraystaan laakiin mid kale oo jirtana ku dara haddaba haddii nasiib ka hesheen annagu labadaas 300 maalinta mudaharaadii habluhuna way yaraan laakiin ragibada maanaan kala lahayn qolo iyo xaafad iyo daandaan iyo iskuul hebel maanaan kala lahayn dhammaantay waanu isnaqaan xaafad walba meesha way ku dhiganayso way isu imanayeen markana la qabto arday u baanu hay qolo cidina way dhacaynayna weydiiso anana maanaan garanay ina wala aabaha caruurta Soomaaliland oo dhan hooyadaana waa hooyada caruurta Soomaaliland oo dhan waa waalid caruurta oo dhan bay waarutay adiga walaalaha waayo waa inta kula day Soomaaliland oo dhan waa walaalaha waayo calanka dirmideeyay dastuurka dirmideeyay abarateen
wax walba walaalaa ka tihiin diinta afka tacliinta waddanka dhaqanka ma midaas ku seegantiin soo inta walaal kama tihiin haddaba shaydaan baa ina soo galaya cadow balaayaah yaan waxaan imika toogtooga ka socda waad yaabaysaa ololana ku jiraa ku faana Somaliland ku faan waxaad iskuulka ka baratay oo waxaad baratay ku faan macallinkaagii waxaa qabtay ku faan dadkii dalka soo dhiciyay qodob kale ayaa xusay hadaa barateen dastuurka illa isagana la hirgeliyo calanku qodobka sare baa soo dhaweeyay soo noqoshadiisa guurside wuxuu ku xogsiiyay geesiyaashii naftooda u sadqeeyay qaranka Soomaaliland Soomaha ninka dadka naftiisa agoonta iskuuladina ku jirtay asak fadhidaan ee aabahood dalka u soo dhintay ee u dhaawacmay kuwa iskuulkooda dhigtaan ee aabahood sidoo idinka waxidiin baraayay cimrigiisa oo dhan ugu shaqaysanayay uu hore u cimri degdegay ee u dhintay inuu tacliinta hirgeliyo boqolaala ka u dhintay dhakhtarka ahaa ee intuu naftiisa biimeeyay intuu adiga ku daweynayay inta dhakhtarka ku dhimatay covidkii iyagoo qof kala daweynaya iyo hablaha neersiga ku dhintay ee qof waliba qofka laga wada baqay uu bareeray xataa xabaashta aan la tagayn miyaan geesiyaal ahayn miyaan ku calanka sheegaya ahayn ninka ku aflagaadeeya ama taabtaade calankii iyo dastuurkii buu jabiyay qarankiina miyaan u dumin ninkaas kama waxbaynu suunahay ma Somaliland darba sidoo ugu quuraa dadka calankaas in wax laga sheego waa ayaan daro miyaan geesiyaal ahayn kuwa culimada ah ee ardayda kuwa quraanka soo qaad hargeysa waxaan wax ku baranay iyadoo 4 malcaamood jiraan oo 3 malcaamood aroortii intay dooxa ka soo guraan oo dagobka ay habeenkii iyadoo la jirin ay ugu dhigaan oogta caynka magaalo walba caynkaas ah ka soo qaad ilaakii kuraasada markaa ku fadhideen iyo markaa qaxootiga joogteen culimadii markii dalku qaxay iyo intii aan isku lehelin dhammaan caruurta ku bilowday quraanka iyo diinta islaamka qabtiisay ee ka qabatay in shaydaan ku dhaxurta meel geesiyaal ahayn oo maxaa loo caaya hada wada maxaa loo maagay oo haduu maagay maxaynu ugeysanaynaa kawa maxaynu maqlaynaa idinka intaasaan idin farayaa dastuurka halkaas uu marinayaa dhaadashadeenu waa Somaliland qarankaas ay nameeyay qolada waynu ka baxaynaa xaafadda qodobka labaad waa doorashada way dhowdahay waa la galayaa waxaan ka codsanayaa dhalinyarada u badanaysa waxa galaya waxaan ka doonayaa inaad ku codaysaan oo u codaysaan nabadgeliyo waa inaynu ku codayno sharciga oo raacdaan ku codeeya ciidamada amniga oo aad dhageysataan oo maqashaan ku codeeya wax alliya wixii khilaaf laga keenaya doorashada ka ilaaliya qof walow asluub iyo edeb kan kale warqasta waa walaalka halkaas ay galeysaan ilaahay baa ugu midoo wuxuu codeeyay maxaa isleenaysan oo booqaysa inta idinka faraya in laagna waxa faraya xisbiyada tartamaya dadkooda inay afkooda iyo aadinkoodaba si nabada oo asluub leh oo aan mid ku gafayn ee hadii la doodayo iyo hadii wax sheegayba la sheego wax wanaagsan iyo waxaad qabanayso in laga ilaaliyo intaasaan codsanaya taana qodobka saddexaad baan u gudbaya maanta caalamka waa ogtiin waxa dagaal ka jira Somaliland u bayna khusaysaa maxaa ka jira walaalayaal waxaynu ognahay maanta Somaliland heshiiska Ethiopia la bilowday inuu soo baxay cadawgii Somaliland oo fara badan waxa la yaab leh Somaliland oo dal yar oo aan lacag badan lahayn sida dawladaha Carabta oo tiisaba la rafanaya sababta dawladaha adduunka qaar kuwa ugu xoog waaweyn ay ciidamadooda ugu soo hajabayaan halkan u keenaya waa la yaab leh waa bixiso dawladda Masar oo dawlad islaam ah oo kuwa ugu xoog weyn kamid ah haday Ethiopia sayaan waxa la yaab leh inay ciidamo 10 kuna iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodii qaybtii hore keentay labadaba waxa kale oo la yaab leh madaxweynaha Masar inuu fagaaro walba ku leeyahay ma dhici karto Soomaaliland inay ka goodo Soomaalida kale yeeli mayna aqoonsiga Soomaaliland ayuu meel uga kale cadaawada waxa uu geeyay baardii sheegaya hadaynu Soomaaliland nahay
صدح كوبية صدر هرق ولا وحبين وراهين أفر يصدر سنة وين وكلا قوري وحمانت حمر يمد ما قرنا يا ودا كوين دوري اللحية أنت كيري وحي كتير حمر يا وحنا اسمه قلت ما قرنا يا إذا كنا رأيك ما يساو وحي صدر كيري ندل كلا الذي رو كنا لتين وكنا قتين وحكم رتين ودت كنا قتين هذا ما محاك اللي في مصر إلى الكوكب نورو مدحويني وحو كشقيا مستقبلك يدنت دلكيسو inuu hore u maro waxba kama galin kuwa kale adduunku waa isdhaqaalaya iyo humanitarian baa jira iyo bini'aadnimo waa sheeko la qoray laakiin aan ruhayn hadday jirto taasi Falastiin baa nabadgel lahayd hadday jirto in la ixtiraamayo oo cid la soo eegayo waxaad arkaysaa meesha la yiraahdo maanta Lebanon waxa ku dhacaya meeshan ninkii la shaqsadaa waa nacas dantiisa qabsan waayay Masar iyo Itoobiya way sayaan warigoodna way sayeen dagaalkii labadooda u dambeeyay dawladaha isu dilaana 150 sano ka hor baa ugu dambeeyay 150 ka sanaba caalamka dhexdhexaadinaya Masar iyo Itoobiya waxa isku haystaan waa biyaha Niilka Masar dalaya maro wabigaas oo qura u biyaa Itoobiya la yaab maraho halkay biyuhu ka soo degayaan Ilaahay baa dejiyay arrintaas la isku haystaa mar walba biyaha Masar Soomaalida aynu ka mid ahayna ilaa 60 kiiloomitir laba goor bay dagaal u gashay labada dagaal miisaankoodu wuxuu ku dhacay Somaliland waayo hubka iyo waxay u dhaway deegaanka meel badan ma ka warrabay UBA keenay kartaa YouTube ka keenay kartaa laakiin maanta dhibaato kala dhacday dhalinyaradu waxay dul qaadato odaashu markay dheereeyaan waa daashaale maanta hayr daarina waxa doonaya taariikh qaataan biyaha maanta la isku haysto Itoobiya iyo Masar waxa ka dhaxeeya ma dhaxgalin banaanka ka joogda laakiin Soomaalida xabar ka hadlaysa ee midnimada doonaysa ee walaaltinimada walaalaha la kala jaraya iyo dhulkii ayaga bad la qaadanayaa bal laba su'aalood oo qof walba ka jawaab kara ayaan weydiinaya waa marka hore nin kale Somaliland waa laba gobol oo aniga iga mid ah ma noqon karaan dawlad ma tashan karaan aniga xukuma caalamka waxa maqlina in heshiis la gashaan halka xabsiga ay ugu xidhaadeen nin kale waa nin kale hadana Soomaali waa walaalo yeena kala tagay waa Xasan Sheekh waa kii ka horeeyay waa kii kale ka horeeyay waa kuwa taageeraya bal aqliyada walaalaynu nahay oo laba caruur oo walaalaynu nahay gurigooda dhashay Soomaaliya isku mid ah haddana adigu hadli mayside sida xoolaha calaf waxa ku tuurul maqal oo aqli mariisa tashan horta qodobkaas aad taagan Somaliland waxay leedahay markii horena ana curadaha ku imid adoon dawlad ahayn oo caalamku og yahay ayaan kalgacayl waga Soomaaliya la isu geeyo sharci gudahood dawladda inta soo qaada aynu ka talin markaasaan ku waliba inagu intaynu iska deeyna muran labadina isu tagay kuwa kale aan doon ninkisaan soo nimid ee aanu 30 sano muransanayn ee aan 12 sano balaayna kala raacday waxa la sheegaa dhalinyaro oo dhagaha idinka barjeeya xamar markay hadlayso timacada wuxuu yiri timacada boqol wax buuro boqol gabi ture keebaad qaadanaysaa adu iyagu waxay qaataa sareeyo manusqaamo ka nasiib ka nasaar waxa kala qaataan dugsi mala qabyaalad waxa la qaataa ma qaataan kuwa kala timacada uu ka yiri hadii labada la waado wax la yeelay waxa kamid ah ninaan hawdudin dawlad baa xamar taala afaristo sano ka bacd koobiya 30 sano markaynu isku jabnay ilaa maalinta nin walo qarnimada u gabiyay oo midnimada u gabiyay Cabdi Iidaande timacada Cabdilaahi Qarshade waxa tiraahdaa ninka la yiraahdo Jabiye Saxardiid waxa ka wada kululaa nimaydaan yar rakiina garaneen oo la oran jiray shimbir ina Maxamed Good heesta uu ka tiriyay hadda waa 64 gorafkaaga xoor kale la iskama gambiyay
halka haddii laynoo soo qaata labadii jibadii 19 oo laynagu asqeeyo oo tabashadii abwaanintii mid walba intuu ka aynaan maqal oo aan rabo qolada distoorka baraysa dhalinyaradu in lagu daro taariikhda soo dhacday inaan waxaan ahayn wax maanta u ah sidaa darteed waxa aweesheen go'aamiyeen oo kuwii ku saanta ku qoray badda ahaa waxay raggii kale calanka u halgamay ee siyaasiyiinta ahaa dhammaantood israaci waxay geesiyaasha nooc walba rag iyo dumarba ee dalka dhisay aqoon gaara dagaal xabad dhiig waxay go'aamiyeen oo aweesheen inaleeyeen anna aanu idin sheegayna ku inuu yaryar oo dhalow ila qaataan in aan Somaliland iyadu mooyaane ilaahay mooyaane bini'aadmi oo kale go'aankeeda yaalan iyo taladeeda ku kastuu yahay ka xoog ku yimaadana ama xoog ku hanqalayna inay Somaliland mid soo dhabarka ka jabinayso waligeed Somaliland lagama guulaysan maantana campaign-keena iyo siyaasadeenu waa inay taasalka ku haysaa ninka siyaasiga doonaya inuu dalka xukumo hadduu taa ka laabto Somaliland ma aha qarankana jarbu ka tuuri doonaa dhammaantood waa inaan waardiye ka haynaa in sharciga la jabiyo maanta waxaanu gabasho lahayn in gudaheenu dad badani ama kursi hawa qaltaagaya ama aqoon gaabnaha ka ahaatee waxyaalihii basiga ahaa ee dhiigga loo daadiyey ee distoorka iyo calanka ah in maanta la aflagaadeeyo distoorka mamnuucaya akhriya international qaybta warshada distoorka akhriya iyo xusaya wuxuu ka soo bilaabayaa daraawiish kuwii ku xigay waadadii Sheekh Bashiir iyo wuxuu ka soo bilaabayaa xisbiyadii wuxuu ka soo bilaabayaa aqoon-yahanadii wuxuu ugu dambaysiinayaa SNM intaas oo dhambe waa dastuurka wadnihiisa oo mid walba uu ku leeyahay sharaf iyo qab ninka maanta ka naftiisa u huray ama xabsi ugu jira u heesaya ma qarno u ilaalinaya waxyaalaha qaarkood waa laga feejinaaday ma aha siyaasad ma aha tartan qaranka lama taaban karo loogu gaban waayo waxaan waa 99% dadka Soomaaliland inay ka midaysan yihiin intooda badna waliba aniga iga sii dhig kulushahay oo dalkooda ka ogolaaneen iyo calankooda iyo distoorkooda in la taabto taana waxa laga arki doonaa warqadda foodka la qaadayo taasaan doonayaa dhalinyarada foosaysa ilkaas taas ay noo balana waxaan tobiga u soo qaatay dhalinyarada iyo baalkan midiya xoog leh waxyaalaha basiga ah ina lagu qaldamin siyaasiyiinta haddaan anigu halkiina joogo dhalinyarada dadka waxaan oran lahaa siyaasiyiinta eray kala ma dhaahdeen haddaad sharciga ka islaamka iyo ka inoo dhaxeeya haddaad labada akaarkaayo waad simantihiin waxyaalo kale ku qiimeynaya akartidiina caafimaadkiina waayaragiina waxaas lagu qiimeynaya laakiin waxaad imtixaanka naga qaadaan hadda waxa sheegay qolada yar ee footaysa odayaashada waaweyn ee boodboodaya horta waxa basiga ee Somaliland horta taan ugu qiyaasa haddii taa qaladkeeda igu qabataan oo aragtaana dee nacsiyaadka hadda sii deysaan qaranka laakiin haddaad ku diganaysa qaranka maalinta ay wax ku dhacaan dee dambiilaata labadaas lagu footaynaya Somaliland baa awaliya reernimo ma aha adeera ma aha hebel baan jecelay ma aha qaranka ayaa difaacay xilkaas ama saraaciida footaynaysa waxa ku soo gabagabeynayaa Somaliland ha noolaato ha hirgasho عدوى Somaliland حمر إياس كاشريا مصر وحين أشيعنا إن نانا هاي قول له هنشبا أما الله صاد دونته كوا وما ستي قرنمو قفك قرن ماذا كوجا فايانا ملبن وسود شيءنا هدي عدة أيضاً يا أمال أوراد ذلك الديس محل كقبض أنتي نالك صفر ويجوا دا يرسل بدن كيلو هذه أدباركم عند غيا وارديد عين يا أدبار فرسنا لكن خير جيسات أنا يرى إذا لدى هذا ولا السينما ده إصلاح قلقة حافظة
iyo inaynu la dagaalano waxyaalaha ceebta ee ka socda bahalka TikTok ee hablaha iyo nimada reer hebel baanu helo sida Soomaaliland noqonaysa arinta waa in laga qaada campaign-ka u weyn wax kale ku faana oo isugu faana laakiin ceeb Soomaaliland qolqol kala sheeganaysa xisbiyadana waa ku ceeb weyn iska waaniya aad iyo aad ma hasantiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته